بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بمحد له. waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro dhalinyarada Soomaaliland dhammaan dalka gudihiisa iyo dibadda kuwa ku nool gobolada iyo degmooyinka tuulooyinka miyiga meel kasta ay joogaan maanta waxaynu ku jiraa Soomaaliland waxa ku jirta marxaladii ugu wanaagsanayd marxaladii horumarka iyo wax qabadka lagu jiraa waxa lagu jiraa marxaladii aqoonta iyo waxbarashada waxa lagu jiraa marxaladii shaqo abuurka waxa lagu jiraa marxaladii qof kasta oo Soomaaliland kamidii uu iskii isu maamul lahay u noolaan lahaa ayaa lagu jiraa waxa lagu jiraa marxaladii wadooyinka biyaha caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan adeegga bulshada oo halkii ugu sareysay uu taagan yahay ayaa lagu jiraa maanta looma baahna maanta cid farafraysa nabadgelyada iyo wanaaga iyo horumarka Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay maanta waxaanu ku fadhinaa nabadgelyo iyo wanaag baynu ku joognaa horumar baynu ku jiraa wax walbana waxay qurux iyo sharaf ku leeyihiin nabadgelyada lagu fadhiyo dhalinyarada Soomaaliland wax uga digaya meel kasto ay joogaan inaan laga faa'iideysan oo aanay ka faa'iideysan dad maangaab ah ama dad dana gaar ahayn ku shaqeystaan inaan ka faa'iideysan ee ay ka digtoonaadaan qaranka Soomaaliland ku wala weeye dalka ku wala weeye madaxdii berrito weeye ciidamadii berrito weeyaga bilayskii dalku weeyaga ciidankii militariga weeyaga ciidankii nabad sugidda weeyaga cid kasta oo dalka ugu wanaagsan been marayna waa in horumarka iyo wax wada qabs waa in laga shaqeeyo waa in dhalinyarada Soomaaliland ay isqiimeeyaan wadankooda iyo dalkooda halku maanta marayo iyo marxaladihii waqtiyadii koriyay u marayay waa in ay qiimeeyaan weeye waxaan uga digayaa Soomaaliland cid dawlad kasta kordhaan cilmiga wax uga kordhaan aqoon dhul badan baa laga iman karaa siyaabo dad badan oo aan la fahmi karayn oo qofku uu isaga soo dhigay inuu muwaadin yahay ayaa looga soo gali karaa dhalinyarada Soomaaliland wax leeyahay waa inay ka digtoonaadaan waa inay ogaadaan dastuurka iyo xeerarka dalku waxa ay qeexayaan iyo waxa ay sheegay qodobka kaliya ugu fudud wax weeye cid kasta oo doonaysa inay wax ku dhaqa ay ilaaliso dhalinyaradan waxa ku waajiba iyo qawaaniinta iyo dastuurka dalka waxa uu dhigayo iga u yaala dalka inay marto wixii waxa aan ahayn hana dhalinyarada Soomaaliland waa inay ka digtoonaad feejignaata waa in aqoon iyo tala isweydaarsi iyo maskax miyir qabta iyo siyaasad cilmiyeysan iyo cilmi waa in wax lagu maamulaa weeye maanta waa la dhaafay heerkii la qaylin jiray Soomaaliland way ka soo gudubtay dagaal way ka soo gudubtay dhiig dhaca way ka soo gudubtay mudaharaadyo maala yacni waa ka soo gudubtay maanta wax la marayo horumarkii iyo wada qabsigii iyo in dhalinyarada Soomaaliland meel la gaarsiyo ayaa la maraya wax laga soo gudbo maanta cidna looma baahna in dib loogu celiyo dhalinyarada Soomaaliland waxa leeyahay waa inaad ka digtoonaataan arinta waa inaad indha xisbigu doono codka siinaya xisbigu doonayo ayuu raacaya laakiin toona ma taagna waa in cidii tartan u baahan ama doona cid cod siiso xilligeeda waa inay sugto iyo waqtigeeda iyo muddadeeda meesheeda waa inay sugto weeye dhalinyarada waa khaldin inaanu campaign doorasho socon inaan xilligeeda ay sugto